magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed. Maanta waxaan idin la wadaagayaa dhibaatada iyo khatarta weyn ee ay cilmaaniyaddu ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Khatarta cilmaaniyaddu ku hayso caafimaadka maskaxda ee dhalinyaradu waa mid aynu maanta ku soo qaadan doono barnaamijkan. Dhalinyarada maanta waxay ku sugan yihiin jahwareer aad u weyn. Jahwareerka dhalinyarada haysta oo ah mid aad u fara badan. Midka ugu weyni ugu khatarta badani waa fikirka cilmaaniyadda oo galaafta caafimaadka maskaxeed ee dhalinyarada. Hase ahaatee aanay sidaa u ogeynba. Taas oo sabab u noqota ama kordhisa suurtagalnimada xanuunada maskaxda ku dhaca sida qulubka, stresska iyo depressionka ama niyad jabka. Haddaba bal aynu isla fahanno waxa la yiraahdo cilmaaniyadda. Andrew Cobson waa aqoonyahan British ah. Shaqooyinka uu soo qabtay ee faraha badan lehna waxaa ka mid ah waa madaxweynaha hay'adda bini'aadanimada ee caalamiga ama la yiraahdo Humanity International. Andrew Cobson waa qoraaga buugga la magac baxay cilmaaniyadda ama secularism. Waxa uu ku sheegay cilmaaniyadda isaga oo soo xiganaya caalimka Jean Paparout in ay ka kooban tahay 3 qaybood. Mid ka mid ah 3dan qodob waa kala saarista hay'adaha diinta, tusaale ahaan masaajidda iyo kaniisadaha, iyo hay'adaha dawliga ah ama waxa la yiraahdo qaran. Taasoo macnaheedu yahay in diinta laga ilaaliyo in ay shaqeyso hay'adaha dawladda. Midda labaadna waa xorriyadda fikirka ama waxa la yiraahdo freedom of thought, iyo in qofku ku kala garto qalad iyo sax kaliya damiirkiisa oo aanay jirin cid kale oo sixi karta. Isla markaana diintana loo siman yahay oo aanay cid kale ka xigin. Sidaa daraadeedna aanay jirin cid loo xil saaray in ay diinta ilaaliso. Fahamka caynkan ah ee ku dhisan mabaadi'da shisheeye ee reer galbeedka ee asalkiisu yahay ka xorowga diimaha waxay keentay in cilmaaniyaddu soo jiidato dhalinyarada Soomaaliyeed oo inkastoo laga heli karo cid walba haddana ay ugu badan yihiin kuwa ku gaarka ah waxbarashada maadiga ah. Qodobada saameeya unuglaanta dhalinyarada ee fikirka cilmaaniga ahna waxa ka mid ah iyaga oo ku jira da'da xorriyadda loogu jecel yahay ee bani'aadan kasta uu soo maro. Sidaa daraadeed kuwa la dhacay ama jeclaystay ama ay soo jiidatay fikirka cilmaaniyaddu waxay jeclaystaan in qaranku ama state-ku ka madax bannaanaado diinta sida ay dhigayso cilmaaniyaddu, sida masaajidda, culimada, si ay uga badbaadaan in masaajidka iyo sidoo kale bulshaduba ku qabsato ama ku ciqaabaan fikirkooga haddii uu ka horjeesto qiyamka diinta. Hase ahaatee marka uu qofka dhalinyaradii bilaabo in uu si xor ah u fikiro si bilaa xuduud ah isaga oo ismoogaysiinaya diinta iyo dhaqanka bulshadiisu haysato, waxa uu la kulmaa ama waxa ka soo ifbaxa dhaqamadan aan halkan ku soo sheegi doono. Waxa uu yaraystaa diinta iyo dhaqanka gaar ahaan culimada iyo masaajidda. Qodobkan waxa hoos yimaada 3 qodob oo kale. Waxa uu bilaabaa in uu wax kasta oo diinta la xiriira uu ku eego fikirkiisa. Sidaa daraadeedna haddii uu u bogi waayo ama uu u qaadan waayo mid ka mid ah aayadaha Quraanka, waxa uu ku sargooyaa inay tahay mid aan jirin ama aan macquul ahayn. Waxa dhiba in qofka wadaadkaahi dadka wacdiyo iyo in dadku ay dhageystaan wadaadada. Waxa uu noqdayaa dhagihiisuna dhibsadaan mawduucyada qaar sida in wadaadku uu ku khudbeeyo ama khudbadiisa ku daro sida cadayga ama sida loo cadaydo, sida suuliga loo galo iyo wixii la mid ah. Qodobka labaad waxa uu ka durkaa cibaadada, tusaale ahaan tasbiixda iyo adkaarta waxa uu arkaa maalayacni waqti lumis ah. 3 waxa uu yaraystaa qadarka waxana uu quursadaa qof kastoo aaminsan qadarka. Waxa uu ku doodaa in ayna wanaagsanayn
in diinta la isku xukumo. 5 marka dambana waxa uu ka fakaraa saxnimada diinta iyo jiritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala. intaasun kuma koobnee qodobka 6 waxa uu caadi u arkaa qofku marka uu aamino cilmaaniyadda macsida sida tumashada iyo aqbalaadda dhaqanada xunxun ee dadka kale ay samaynayaan ama ehelkiisuba uu samaynayo. halkan waxaan kula wadaagayaa fiiro gaar ah. inkastoo dumarku aanay sida ragga ama wiilasha cilmaaniyadda ugu badnayn, haddana hablaha inta badan waxa u dheer iyaga kuwa qaatay cilmaaniyadda in ay aad u aaminaan waxa la idhaahdo feminismka iyo sidoo kale dhaqan nacayb iyo rag nacayb. si kastaba ha ahaatee, dhallinyarada kuwooda u dheglulay ama laabta u furay cilmaaniyadda amaba ka fikiraya iyagoo is-og ama iyagoon is-ogeynba waxa ay ku yeelataa saameyn weyn oo khatar ah. waxaa calaamadaha ka mid ah lagu arko: 1 hurdo yaraan ama hurdo la'aan, 2 shaki badan, 3 cabsi aanu garanaynin qofku waxa uu ka cabsanayo, 4 warwar joogto ah oo aanu garanayn sababta keentay, 5 ka warwaridda mustaqbalka iyo in wax xumi ay dhici doonaan, 6 xasuus badan oo la xidhiidha waxyaabaha xunxun ee uu horey u sameeyey ama ku soo dhacay, sidaa daraaddeedna marka uu xasuusto uu indhaha isku qabanayo, 7 kalsooni darro, 8 waxa uu halis u yahay xiise la'aan, waxna ma jecla waxna ma necba, 9 samir la'aan. waxaanay ku dhacaan calaamadahani marka uu ku talax tago cilmaaniyadda. fiiro gaar ah, arrimahan aan kor ku soo sheegay cilmaaniyadda oo keliya ma keento, waxa keeni kara arrimo kale. hase ahaatee, midda ugu daran oo aan daawo lahayn waa cilmaaniyadda, waayo dawadiiba oo ahayd diinta qofku waa ka fogaaday. arrimuhu way sii xumaadaan marka uu qofku ku sii durko cilmaaniyadda. waxaana dhaca: 1 qofka dhallinyarta ah waxaa hakad ka gala arrimihiisa khuseeya horumarka, sida dhammaysashada waxbarashada iyo shaqo raadinta iyo waxyaabaha la midka ah. waxaana ugu wacan awoodda iyo tamarta maskaxdiisa caafimaad ahaan ee waxqabadka. 2 marmarka qaarna waxa uu ka fakaraa in uu diintaba ka baxo. taasina waxa ay keentaa ama dhalisaa in uu ku sii fogaado xanuunku ilaa uu gaadho meel halis ah oo ah xanuunka niyadjabka heerkiisa ugu sarreeya, ilaa uu qofku si toos ah iskugu dhiibo xanuunka depressionka isaga oo aan cidi ogeyn. ilaa iyo hadda maan soo adeegsanin ama ma soo qaadanin hal aayad ama hal xadiis ah. sababtuna waxa weeye in dhallinyarada shabaqa ugu dhacay cilmaaniyaddu uu shaki ka hayo ama shaki kaga jiro qowlka Eebbe subxaanahu wa tacaala iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxaanse u caddaynayaa in cilmaaniyadda iyo diin la'aantu keento xanuunkan khatarta ah ee ku dhaca maskaxda ee loo yaqaano depressionka. Emile Durkheim waa caalim weyn oo faylasufar ah oo reer galbeed ah. caalimkaasi waxa uu buuggiisa la magac baxay Suicide, oo uu kaga hadlayay sababta aanay dadku u faraxsanayn amaba ay qudha iskaga jaraan amaba uu ugu dhaco xanuunka depressionka la yidhaahda ay tahay mid ka midii diin la'aanta ama qofka oo ka durka dhaqanka iyo dabarka bulshooyinka uu ku nool yahay. arrintaasina maaha arrinta keliya ee uu ku sheegay buuggiisa The Suicide, ee wuxuu ku sheegay 5 qodob oo waaweyn oo ay tani ka mid tahay. waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada cilmaaniyadda dhagaha u furay in ay dhagaha ka xidhaan, isla markaana ay iska maydhaan qashinka iyo xashiishka ay kaga tagtay maskaxdooda iyo qalbigooda si ay u helaan nolol wanaagsan. barnaamijkeena dambe waxaan kaga hadli doonaa maxaa keena in dhallinyaradu ay cilmaaniyadda kuwa aqbalaya ay aqbalaan,
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu